31 January 2021 ayay argagixisadu weerar ku soo qaadeen hotel lagu magacaabo Hotel Afrique oo ku yaalay Sona kilometer 4 wadada aada garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport hotelkaas oo ahaa goob dadka shacabka ay isugu yimaadaan ayay argagixisadu weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxsho walxaa qarxa kadibna ay u isticmaaleen nafti haligayaal ugu talagalay inay qarribaan naftooda iyo nafta dadka shacabka ah goobta ku sugnaa ayay ku bilaabeen saasa maanta dhacdaas ku dhacday hotelka inta ilaa hadda la xaqiijiyay waxa weeye dhimasho ilaa 12 qof ah dhimasho ilaa 9 qof ah iyo dhaawac ilaa 12 qof ah oo dhamaantood goobta wax ku wada gaareen waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta ku dhimatana Allahu naxariisto intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha boogadhayo inta dhimashada ah waxay isugu jiraan 4 argagixisadii kamid ah kii gaariga kowda hore isugu qarxiyay iyo 3 kadib nadiifinta iyo afjarka howlgalkaas ay ciidanku ku soo afjareen iyo 5 qof oo kamid ah dadkii shacabka ahaa oo hotelka ku agdhowa walow warbixinta aan helayno ay sheegayso in dhaawacyada ay la sii geeyay isbitaalada magaalada lagu dabiibayo halkaasna ay tiradu ka noqonayso ilaa 12 dhaawaca iyo 9 qof inta ilaa hadda la xaqiijiyay way jiri karaan in dhaawacyadu ay dhimashadu sii kororto oo dhaawac kale qof dhaawac ah ay wax ka gaaraan laakiin ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa intaas waxaan ummadda gaarsiinaynaa inay sidaas wax uga dhaceen meesha warbixinta aan siinayna waa mid hordhaca ah warbixinta oo dhameystiran iyo wixii kale oo ku soo kordhana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa maadaama goobta oo mugdi ah korontadina ay maqan tahay awgeed ma jiraan wax inta ka baxsan oo gooni ah oo naga siinayno marka waxaan idin sheegaynaa waa idin sheegay dadka weerarka soo qaaday 4 qof baan idin oo qof gaariga hore uu isku qarxiyay 3na howlgalkii dambe soo afjarka lagu soo afjaray dadka dhaawaca ay dadka dhintana tiradoodu dhaawacu waa 12 dhimashaduna waa ilaa 9 qof inta aan xaqiijinay marka warbixinta oo faahfaahsan dib baad ka heli doontaan laakiin waxaan ku sheegi karaa ilaa hadda inta aan haynayna intaas tahay waa maasantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh